live trading-keeni tooska ah maanta Arbaca 16 July sida arkaysaan waxa weeye suuqa halkaan ka baagareynay trade-kaani soo 35 bibo na siiyay isagoo drawdown xoogan ugu qabto naga soo saaray alxamdulillah marka waa manage gareynay marka uu TB1 kana siiyay all the way TB2 geena aad buu ugu dhawaaday oo 50 bibo ah 35 bibo marka aan ku manage gareynay ilaa halkan uu suuqa yimid markale waxaan sameynay re-entry halkana waxaan ka sameynay re-entry trade-kan baaga 36 bib target-keena 17 bibo asalkeena soo hadda almost wuxuu noo dhaqaaqayaa 18 ilaa 7 bib camal markaas la aragna insha Allah isagana waxa uu ku dhamaado trade-kaani sida arkaysaan alxamdulillah isaguna xogaa si fiican buu noogu yara dhaqaaqay yani 12 bib camal uu na siiyay kadibna isagoo aan TB1 keeni gaarin break-even buu naga saaray 12 bib markuu na siiyay waa ogaa yani riskiga jira dhalinyaradana waa la wadaaga already sa arkaysaan waa iska break-even gareena faa'iidana waxba ka xiran sida arkaysin oo nagu soo laabtay marka runtii maalmo suuqu aad u xun yahay waaye laakiin alxamdulillah markasta yani waxa weeye caqligeena ku soconaynaa iyo intii ilaahay waxa naga fahansiiyay trade-ka horena sidaas la mid ah u manage gareena kana sidaas la mid ah marka trade-ka hore waxaan ka helnay 35 bib iyo kan oo aan 12 bib camal ka helnay almost 50 bib ku dhawaad labadan trade maanta aan ka helnay suuqa NY insha Allah hadii aan fursad helno waa arki doonaa waa fiirin doonaa inkastoo trade noqonayso laakiin mar haddaan labadii trade hore aan profit helnay waa fiirin doonaa insha Allah trade oo high probability haddaan helno haddii kalena maalinkeena intaas ku eegaya nabadgelyo